injineer yaasiin aad iyo aad u mahadsan tahay warbixintii maanta oo talaadaha waxaynu mar kale dib u eegi doonaa bal wararkii ugu dambeeyey iyo waxyaalaha kasoo kordhay iyo wararka diblomaasiyadeed ee ku saabsan qadiyadda dalka Qatar iyo dalalka kale khaliijka ee ay isku dhaceen. dabcan wararka mar walba way isbedelayaan, waxaana jira dhacdooyinkan inay marba dhinac u dilaamayaan, waana arrin caalamka oo dhan ay markaasi sida muuqata ay saameyn weyn ku yeelatay, gaar ahaan dunida islaamka ama dunida maartay islaamka ama wadamada carabta oo dhan arrintu way saameysay. wararkii ugu dambeeyay haddaynu ku bilowno dalka Soomaaliya oo qadiyadan ay lugaha la soo gashay, madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu diiday isla markaana uu meel adag iska taagay inuu xiriirka u jaro dalka Qatar. madaxweynuhu iyo dowladda Soomaaliyeed wada tashiyo buuxa ay sameeyeen golaha wasiirada iyo golayaasha kala duwan ee dowladdu waxay horay waynu ogeyn inay arrin dhexdhexaadnimo qaateen, isla markaana dalalka khaliijka iyo dalalka carabta ugu baaqeen inay arrinta ku dhameeyaan wada hadal diblomaasiyadeed, isla markaana xiisadda ay dhimaan. hase yeeshee waxaa jiray in safaro gooni ah oo u badnaa waliba kuwa Sacuudiga u badnaayeen kuwa qarsoodi ah madaxweynaha lagu saareeyay iyo dowladdiisa culays xagga inay arrintan go'aan adag ka qaataan ah oo waliba dalkan yar ee Qatar ay xiriirka u gooyaan. dowladda Soomaaliyeed arrinta way diiday, madaxweynuhuna waa diiday. sidoo kale warbaahinta Soomaalidu aad u daabacayaan, isla markaana ka soo baxaya ilo ku dhow madaxtooyada walow aynan si madax banaan u xaqiijin karin. waxay tibaaxayaan in dowladda Sacuudigu ay u ofargaraysay ama ay u ballan qaaday dalka Soomaaliya inay sii doonto lacag dhan 80 milyan oo cash ah oo aan ka madax banaan bay yiraahdeen lacagii hore ay u ballan qaadeen dalka Soomaaliyeed. lacagtaasna ay imaartay u siinayeen Soomaaliya inay xiriirka u jarto dalka Qatar oo ay meel adag iska taagto sida dalalka kale ee carabta qaarkood ay sameeyeen, sida wadamada Masar, Bahrain, Imaaraadka carabta, Mauritania iyo dalka Senegal oo isaguna ku yaala galbeedka Afrika, kuwaas oo gebi ahaanba jaray xiriirkii ay diblomaasiyadeed iyo safaaradihii iyo safiiradiina dib uga yeedhay dalka Qatar. balse dowladda Soomaaliya arrinta way diiday. dad badan ayaa waxay isweydiinayaan arrintan walaac intee leeg bay ummadda Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed iyo doorka carabta ama wadamada carabta ee Soomaaliya ku yeelan kartaa iyo nolosha iyo ganacsiga ummadda Soomaaliyeed. arrinta haddii intaynan wararka kale xasaasiga ay gelin arrinta isdul taagno, dalka Soomaaliya wuxuu ku yaala madaqad istiraatiiji ah oo marka la eego dhulka ay dhacdo Soomaaliya xeebta labadan badood ee Soomaaliya labaduba ay yihiin laba badood oo muhiim u ah isku xirka iyo marinada caalamiga ah ee caalamka iyo waliba gobolka. Soomaaliya badda cas iyo baddan Indian Ocean-ka, marinka Bab el-Mandab, sidoo kale Canal Suez oo aynu ku dhownahay oo dalku ku dhow yahay. dalka Soomaaliya uma badna inay Sacuudigu tallaabooyin dheeraad qaataan. waa laga yaabaa inay Sacuudigu ay lacagaha dheeraadka ah ama waxyaalaha ay yiraahdeen dowladda Soomaaliya ku caawinana ee dib u dhiska dalkan ka caawinana inay daahiyaan ama dib u dhigaan way dhici kartaa. sidoo kale Imaaraadku waa laga yaabaa inay qandhinfooyin hoose ay Soomaalida ku dhuftaan. hase yeeshee marka la eego arrinta si labada dal la kala saaro, dalka horta Imaaraadku faa'iidada ugu badan isaga Soomaaliya ku qaba ee Soomaalidu kuma qabto. dhammaan waxa dalka Soomaaliya soo gala, hadday tahay raashinka, hadday tahay dharka, hadday tahay arrimaha ganacsiga oo dhan waxay soo maraan dekada Dubai ayay soo maraan oo ka yimaadeen dalalka waliba inta badan dalka Asia, dalka China oo Soomaalida ganacsigooda aad ugu xiran yahay. dhammaan waxa ka yimaada waxay istaagaan oo maraakiibtaas doomaha Soomaaliya imaanaya ama maraakiibta Soomaaliya imaanaya ay ku kala bedeshaan ama ay istaagaan oo ay agensiyo iyo xarumo ku leeyihiin xafiisyo ah dalka Imaaraadka Carabta. sida la aaminsan yahay lacag ku dhow in ka badan 3-4 bilyan oo dollar oo dadka qaarkoodna ka badinayaan ayay dowladda Imaaraadku ka samaysaa ama ka heshaa oo faa'iido ah ganacsiga Soomaalida ay la leedahay. haddii ay cadaadis noocaas samayso, Soomaalidu ila kale ma furan yihiin, meel kale ma soo mari kartaa. Soomaalidu xeeb balaarna way leedahay, xiriir toosana waxay la sameyn kartaa dalalkaas maartay qaniga ah, way ka wareegsan kartaa arrimahaas
arrimahaas oo dhan runtiina dib u dhaca ugu weyn imaaraadka ayuu wajahayaa qadar lafteeda bay deked ahaan maaragtay xarun ahaan Soomaalidu isticmaali kartaa Djibouti baa jira xataa xamar haday nabad noqoto oo maaragtay dalkeenu hagaago ama magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida sida Boosaaso iyo Berbera oo iyaguba nabada waa loo soo wareegi karaa yacni dhibaato lixaad Soomaalidu kuma soo wajahna arinta xoolaha inkastoo xoolaha Soomaaliyeed iska bayar yihiin hadeerto dhib abaarihii iyo dhibaato masiibooyinka qaranka wajahay ay xooluhu ku laciifeen wali xoolaha Soomaaliyeed suuqyo caalami ah oo kala duwan bay haystaan Soomaalidana noloshoodu xoolaha hadeerto aad ugu wada tiirsana dad badan baa dibadda ku tiirsan iyo nolosha dibadda oo wadamada galbeedka ha u badnaadeen marka arinta Yaman oo xuduudan badda ah ama badan aynu la leenahay iyo Yamantan oo dagaalku ka socdo marka Soomaaliya hadeer go'doon siyaasadeed noocaas ma gali karto mustaqbalkana arintu kulli goor la wada hadli doona oo miiska wada hadalka la sugu imaan doona positionka Soomaaliya maanta ay qaadatayna waa position dadka Soomaaliyeedna aad u soo dhaweeyeen dunida meel kasta ay ka joogaan dawladana waxay muujisay beelay marka la eego public Soomaaliyeed ama shicibka Soomaaliyeed yani radul ficliga ka imaanaya waxay leeyihiin waxay istaagtay boos fiican oo sumcadda Soomaaliyeedna soo celi karta Soomaaliyana wadan miisaan le ka dhigi karta oo runtii waxa uu diblomaasiyadiisa ama danihiisa u arko oo sameey kara arintan waxay kala soo dhaweey kartaa oo laga yaabo in dawladda farmaajo iyo dawladda Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo dhamaan baarlamaankuba inay fahmaan in Soomaaliya ay qaado karto istiraatiijiyadda la yiraahdo zero problem policy oo waa siyaasad ku saabsan in aan dalku markuu noocaas oo kale yahay u nugul yahay dhibaatooyinka faraha badan uusan cidna colaadsan arintaas waxaa dalal badan arinta ka faa'iideystay horeyna siyaasadda ugu guul gaaray dalka Turkiga oo hadeerta dunida saameyn weyn ku leh ayaa arintaas 100 sano ku dhaqmayay muddo ku dhow oo siyaasadda dhibaato la'aanta ama inaan dal laba wax khilaaf idin dhaxmarin oo dal kasta dalkii ay dal ismaagaan aad ku qanciso inaga xiriirkeenu waa fiican yahay dalkaana xiriirkayaga anaga waa fiican yahay mana qaadi karno culays siyaasadeed oo cid walba nooga yimaado xiriirkeeni sidii uu ahaanaya laakiin qadiyada idinkeedii dhaxaysa annaguna sideedana oo tacaamulana culayska siyaasadeed dalka iyaguna ma qaadi karo cid kasta ha ahaatee siyaasaddaas Turkiga ayaa runtii ku meel maray oo maanta meesha uu taagay ay dunidana ka yahay waxaan ugu horeysay dalka Turkigu 2003 ayaa ugu horeysay markii ugu horeysay ay wax diidaan ama ay arrimaha siyaasadda caalamka farageliyaan kadib dagaalkii Ciraaq ee dalka Mareykanka horboodayay ayay si waadixa u diideen meel adagna iska taageen balse markaas waxay ahayd mar ay yani meesha dhaqaale ahaan military ahaan iyo nolol ahaan ama horumarka waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo mistawaha ay caalamka ku leeyihiin uu soo gaaray Soomaaliya hadii siyaasad noocaas ay dooratay waa siyaasadda kaliya ee Soomaaliya maanta dhibaatada ay kaga bixi karto inaysan Soomaaliya dal laba wax colaad u muujin wax dhibaato aana aysan yani aysan iyadoo dal kale raali gelinaysa aysan dal kale ku duulin waayo dal kasta wuxuu leeyahay saameyntiisa dal kasta waxay Soomaalidu ku mamahada geed kasta xaabo in gubta waa hoostaala xaabo gubta waa hoostaala in gubta waa hoostaala marka qadar waxay kamid tahay dabcan dalalka Soomaaliya maartay way lugo kartaa haday Soomaaliya ay qadar ay maartay sheegeen ay la safato oo Soomaaliya la safato dalalka qadar ka soo horjeeda balse Sacuudigu Soomaaliya marna ma dhibaateeyo karo waayo haday Soomaaliya tiraahdo anagu waxaanu qaadanay neutral stance ama dhexdhexaadnimo dabcan sabab ay Soomaaliya u dhibaateeyaan aan gardarro ka ahayn ma jirayso haday taas timaadana dabcan Sacuudigu hadda laftiisa wuu istijaabiyay oo dalalka islaamka ama caalam islaam sida uu ka rajeynayay may noqonin waayo waxa leeyahay 20% wax ka yar ayaa talaabadiisa taageeray 80% waxay noqdeen wax ka soo horjeesta iyo wax dhexdhexaadnimo qaata marka Soomaaliya waxay qaadatay talaabo fiican waxa jira xubno la sheegayo baarlamaanka ama aqalka sare ku jira Soomaaliya oo arintan u ololeynaya oo qaarkood maamul goboleedada gacan saarka la leh dalka Imaaraadka ay ku jiraan oo uu kamid yahay professor Turile oo warbaahinta gudaha Soomaaliya la hadlay dawladana ku canaantay talaabada dhexdhexaadnimo ay qaadatay dabcan waxa laga yaabaa dadkaas inay siyaasado kale iyo maartay ama
talaabooyin dhaqaalo iyo waxyaalaha noocaas oo gaar ahaaneed iyo inay iibiyaan siyaasadda Sacuudiga siyaasadan dhibaatadan bariga dhexena ay Soomaaliya rabaan inay ku dhex qasaan dabcan arrimahaas oo dhan marka shacabka Soomaaliyeed la eego dareenkiisa dal iyo dabadmeel ay joogaanba mid uu quminaysa maaha mid ay taageeri doonaan maaha dawladda Soomaaliyeedna ilaa hadda waxay haysataa majority-ga taageerada shacabka dabcan waxayna ku taagan tahay baan la oran karaa sida shacabka Soomaaliyeed doonayaan marka shakhsiyaad noocaas oo kale aan ay dawladdu ka digtoonaato ayay dadku soo jeedinayaan marka baraha bulshada iyo waliba meelaha dadku ku sheekaystaan iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed oo aad iyo aad dad siyaasadda u jecel ah una hadal haya dhamaantood waxay muujinayaan in go'aanka dawladdu yahay go'aan rasmi ah inta hadaynu kaga baxno arrimaha Soomaaliya iyo qadiyadan iyo waliba faa'iidada Soomaaliya ugu jiri karta inuu inta ku soo koobno dibna aynu ugu noqono bal horumaradii iyo dadaaladii ugu dambeeyay ee soconayay iyo waliba waxyaalaha arintii qadar iyo dalalka caalamka ku saabsaneed aan ugu horeysiino horay shalay waxaan u baahinay in ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif uu tagay magaalada Riyadh ra'iisul wasaaruhu war qoraal ayuu soo saaray wuxuuna sheegay in ay hoosta ka xariiqeen ayuu yiri in ay dalka Sacuudiga iyo dalka Pakistan mar walba ay noqonay ay xaqiijinayaan in saaxiibtinimadooda iyo walaalnimadooda halkii tahay xiriirkoodana waxba iska bedelin wuxuuna yiri aad iyo aad ayaan waxaan u taageersanahay ilaalinta buuri midnimada iyo wadajirka iyo madax banaanida dalka Sacuudi Carabiya oo ay tahay inaysan ciduna faragelin wuxuuna hoosta ka xariiqay in halkaas ku taalo buuri xarumaha barakaysan ee islaamka iyo dalka Pakistan ba wadnaha uga yaala oo dabcan uu la jeedo labada aqal ee barakaysan isla markaana uu boqor Salman bin Abdul Aziz Al Saud yahay ilaaliyaha labada xarumood ee shariifeynka intaas ayuu ku koobay war saxaafadeed uu soo saaray kamu hadlin haday ka wada hadleen arinta qadar muu taaban inuu dhinac la saftay ma uusan taaban xataa inuu arinta dhexdhexaad ka noqday balse waxaa jira in siyaasadda gudaha ee dalka Pakistan shacabka Pakistan aad iyo aad ay uga soo horjeedaan talaabada Sacuudiga baarlamaanka sayna hore u sheegnayna aqalka hoose ee Pakistan oo hore dawladda ugu amray inay dhexdhexaad ka noqoto arinta oo ay dhexdhexaadiso balse aysan dhinacna la safan sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar ninka la yiraahdo Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa hoosta wuxuu ka xariiqay in wada hadal kasta oo laga hadlayo xalinta arintan aysan Qatar ogolaad doonin in arinta ku saabsan idaacadda iyo TV-ga la yiraahdo Al Jazeera in miiska la soo saaro wuxuu ku tilmaamay arintaas inay tahay arin dalka arin gudaha arrimaha gudaha Qatar ah isla markaana aysan noqon doonin wax marmarsiyo ka noqdo wada hadaladaas wuxuu yiri waxaanu dhamaan diidanahay in wax wada hadal laga yeesho arinta ku saabsan Al Jazeera channel ama maarta TV-ga Al Jazeera isla markaana uu yahay arin gaar ahaaneed oo dalka Qatar kamida isla markaana wuxuu yiri arintaas waxay meel dhac ku noqon doontaa madax banaanida dalka iyaga in laga hadlo Al Jazeera in la dhibaateeyo ama in wararkiisa la xadidana waxay noqon doontaa buu faragelin dalka gudihiisa maartay dalkayga loo geystay mana yeeli doono ayuu yiri horay waxa u jirtay in dalalkaas oo ay dabacsanaan yar wax lagu tilmaami karo ay sameeyeen waxaana la sheegay in qoysaska isqaba ama qoysaska isqaba oo ay ka soo kala jeeda dalalka Qatar iyo dalalka kale is hayaan sida Bahrain waxa jira dalalka Khaliijku dabcan dadku waa dad is ah oo Carab ah oo muslimiin ah oo haddana isku madaqada ah isku deegaana way isguursadaan marka waxa jiray dad lamaanayaal oo wadamadaas isku qabay oo horay u saameynayay go'aankii ku saabsanaa inay wadanka ka baxaan qadariyiintu tusaale ahaan nin qadar ka soo jeeda oo xaaskiisu ay tahay imaaraat oo ay degan tahay Dubai hadii la yiraahdo ka bax dalka inuu ka bax ayay ahayd balse taad waxaad moodaa inay dabciyeen dawladahaas waxayna sheegeen inta inay dib uga fiirsanayaan hase yeeshee hay'adda Amnesty International ayaa waxay ku tilmaantay wax yar oo aan ku filayn bay yiraahdeen dhibaatooyinka hareeyay ama ku dhacay bay yiraahdeen dadka qoysaska ah iyo caruuraha waxayna sheegeen in arintaro ay tahay inay loo balaariyo in qoys kasta oo ku noolaa dalkaasi ama qadari ha wada ahaado dadkoo dhan qoyskoo dhan tusaale ahaan qoys caruurta iyo hooyada iyo odaygu intuba haday xitaa reer qadar yihiin inaan laga saarin dalka ay ku noolaadaan oo ay waxbarashada caruurta iyo aan la burburin iyo ganacsiga waxayna ka digeen in arintaas oo ay noqon karto arin ku noqon karto bay yiraahdeen dambi maartay caalami ah kala geynta qoysasku ay tahay shuruuc maartay caalamka ka degan inaan la kala geynin qoysas qaba oo si sharci u degan dalalkaas
waxaana sidaas uu sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen ninka qatar u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ama hay'adda ilaalisa xuquuqda dadka qatar cali bin samiikh almari iyo ku-xigeenka ama aan idhaahdo xogayaha guud ee Amnesty International dalka Britain u fadhiya Salil Shetty oo markaasi ay shir jaraa'id ku wada qabteen magaalada London waxayna arrintaas sheegeen inay arrintaas ay noqon doonto tallaabo cawaaqib xumo ah haddii arrintaas ay yani ay ka noqon waayaan dalalkaas sidoo kale xogayaha difaaca dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa wuxuu ku tilmaamay cawaaqib xumo arrinta xanibaada la saaray Qatar wuxuuna yiri Qatar waxay noo ahayd meel si guud loo isticmaalo oo looga hortago buu yiri argagixisada iyo dhibaatooyinka caalamka iyo Mareykankaba soo food saarayay wuxuuna yiri arrintaas waxay nagu dhalisay arrin waxay noqotay arrin cawaaqib